Waan ku salaamay daawade ku soo dhow muuqaalkeena maanta waan kaga hadli doonaa sida ugu habboon ee imtixaanka loo diyaariyo isla markaana loogu diyaar garoobo imtixaanka. Muuqaalkan waxa uu gaar u yahay dhammaan ardayda wax barata, waxaana muuqaalkan ka anfici doonaa isla markaana si ballaaran uga hadli doonaa sida loo diyaariyo casharaadka imtixaanka aad ku galayso. imtixaankaasi ha ahaado mid aad berri gelaysid ama maalmo kadib ah. Haddaba tallaabada koowaad ee arday lagaa rabo inaad qaadid isla markaana imtixaankaasi ugu diyaar garoobaa. Horta marka koowaad waa inaad wax akhridaa. akhriskaasi ayaanu kala qaadi doonaa 5 qodob oo waaweyn. qodobka koowaad ee soo qaadan doona wuxuu noqon doonaa akhriska degdega ah oo indhaha laga akhriyo. akhriskan koowaad waxaa lagaa rabaa inaad samayso akhrin aan lahayn wax dul istaaga min bilow ilaa dhammaad inaad akhridid isla markaana aad indhaha marisid. tallaabada labaad ee lagaa rabaa inaad samaysaa waa akhriska xooggan isla markaana akhriska hoos ugu dhaadhacaya waxyaabaha aad akhrinaysid. samee akhris qoto dheer waan ahayn mid degdega waana akhriska loo yaqaano akhrinta qotada dheer ilaa aad u dhaadhacdo ruuxa casharka ama mucda casharka. markaad akhriskan samayso waxaa wax badan kaaga kordhi doonaan isla markaana aad dareemi doontaa inaad wax badan akhriday. tallaabada saddexaad ee aad samayn doontaa waa inaad calaamadayso meelaha muhiimka ood calaamadaysa waxay maskaxdaada ku samayn doontaa xusuus dheer isla markaana waxay kaaga socnaan doontaa meelaha casharka ee aan muhiimka ahayn. tallaabada afraad ee aad samaynaysaa waa inaad ku akhrido cod kor u qaadisa ama cod dheer isla markaana ah mid aad ismaqashiinaysid adigu. akhriskani waxa uu ka caawinayaa in maskaxdaadu xifdido isla markaana loo gudbiyo qaybta maskaxda ee xusuusta dheer. qodobkeena shanaad isla markaana ah ka ugu dambeeya ee aan kusoo khatimanaa waa inaad samayso xifdin oo ah ku celcelin badan. adigoo akhriya ayaad samaynaysaa inaad ku celcelisid. kadib markaad in badan ku celcelisid isla markaana xifdid waxaa laga rabaa inaad samayso qoraalkaasi oo sheegaya inaad xifdiday wixii in kale. halkaas ayaan muuqaalkeena kusoo gabagabeynaa. waxaan rajaynayaa khayr iyo inaad ku guulaysatid imtixaanka insha Allah.